حاجني ما نويني إنه كرده وارد كرر عرّ وحلاقات دولة دونان دوقات يو حقاوض منك الصبي عرّ وعلى صعدان العاقلة ويسكبيهين لبضا وما توان هل كان كقوة رمية عرّ وحها سركان عيدا كوا بندوليه إذا مضى سومالان عرقابها عرّ وحو توضيبا وكتغي عيدا markuu ciidanka ka tagay waxa hadee haduu cabasho sheegay wadadii cabashada ee caadiga ahayd inuu maro manaha shacbi dad badan baa waxay isweydiiyaan beelihii waa la dhameeyay carrada arrinkiisa ma loo dhameeyay waa carrada horta wuxuu ahaa nin ciidana beelahana beelaha shacbi oo istireeyahay ciidankuna iskiiba wuxuu leeyahay shuruuc gaar ah u leeyahay dabadeed waxaanu tagnay ceelf weyn tiriibkan maaha waa tiriibkii hore step step baan doonayaa inaan ummadda Soomaaliland ugu kala ergareeyo ceelf weyn waxaanu tagnay caaro markaa ciidanka ka tegay oo jooga agteeda oo gaari kale haysta halka ciidamada qaranka iyagoo waajibaadkooda gudanaya waxay aad u rabeen inay qabtaan isaga gaarigiisa maraduu noqday nin ciidanka ka falaagoobay dawladana oo dulqaad badan muujinaysa oo markaan anagu aad wuxuu sheegi weynay qasab waxay noqonaysaa inaanu wada sheegno oo aad u daraynaysa inay arrimaha beeluhu dhamaadaan baa yiri amar bixiyay amar dawladdu wuxuu ahaa inaan isaga gaarigiisa la qaban si aanay carqalad ugu iman nabadgelyada loo fadhiyo beelaha oo aan isku dhexgelin arkiisa yarka beeluhu inaan la qaban isagana xidhiidh gaar ah la sameeyo inuu ciidankiisii iyo wixiisii la xidhiidho oo ay arkiisa uu ciidan ahaan ku dhameeyo beelahana aanu dhexgelin dabadeedna taas number 1 bay ahayd waxa jirtay hadana isla anagoo joogna inuu laba gaari ka haystay labada gaari meel ergaabiyo ceelfoon u dhaxaysa buu galay waxa soo wada maragbay leeyihiin wuxuu qaatay mushaar ciidanka loo soo waday buujidgooyo u galo qaatay mushaarkii markuu qaatay ciidamadii mushaarka lahaa waa ku qanci waayeen dawladdu waxay markaan arrimaha beeruhu bal dhamaadaan yeynaga dhexgelinay yaa waxba laga daba tagi halka waxaan u maleeyaa meelaha wax kale ka dhasheen weeyaan korneelka dambe ka daba tagi leedo Jamaal guutadiisii uu ka qaatay lacagta Jamaal anagoo wada joogna odayaal iyo wasiirada buu noo yimi isagoo aad u caraysan wuxuu ninkan lacagta haysan maaye haddaanu ka soo qaadanayna anagu waxaanu tixgelinaynay nabadgelyada deegaan ha ka daba tagin baan caar iyo ciidankiisu ceeriyaan halkan leeyahay 3 nin baa lagu dilay labada dambe mooyaane ninkii hore isaga ciidankiisa dilay markaa samaystay dabeedna waxa la yiri markaana balbeelahan waxaan naga dhamaadeen inta badan inagu dawlad baynu nahay ummadana dulqaad baynu u leenahay halka nabadgelyaha lagu eego iyadoo waliba halka anaad uga mahadnaqayo beesha uu dhibtu soo gaadhay oo aad noola qaadatay iyo wasiirka arrimaha gudaha aad ugu dadaalay oo beesha ku qanciyay in arrinka caarre uu yahay arrin ciidana iyo dawladda u dhaxeeya caarre sidii kuma joogin iyadoo beelahay nabadii markii aanu galay maalin walba beel baa casuumaysay dadka waxay casuumaysay beesha kale
dabadeedna si isdhexgalkii loo sameeyo iyo guddidii bay casuumadu samaynaysay dabadeedna suldaan ka mida salaadiinta beesha caara ka soo jeeda baaqado wuxuu ku sameeyey bohol meel la yidhaah markuu bohol ku sameeyey qadada waxaa loo sameeyey labada beelood madaxdoodii iyo guddidii dhexdhexaadinta qadadii bay qabteen isagoo suldaankiisu la socdo oo wado oo dadka isagu casumay buu dhexda u galay halkaa waxay noqotay qadadaasuna ay ku baaqsato goobjoog waxaa ka ahaa salaadiin fara badan oo de guddida la socotay iyo guurtiba salaadiinta waxaa ka mid ahaa suldaankiisa cali cumar waxaa ka mid ahaa suldaan siciid yuusuf xaaji ducaale waxaa ka mid ahaa suldaan bulbul waxaa ka mid ahaa suldaan dhawal oo isna guddida kale guurtida qolooyinkii ka socday ahaa iyo salaadiin cidda ka badan halkaasuu galay dadka iyo guurtida maalintaana dee ciidanku meel walba uu ka xigay haddii wax lagu samaynayo iyadoo ay sidaa tahay maantana weli annagu xukuumad ahaan in sharciga sidiisa loo wada fuliyo aada uma rabno isagay ku xidhan tahay iminkana maadaama halkaa ka dhikaleergareeyey hadduu nabad qaadanayana isagay ku xidhan tahay oo dee somaliland buu ka mid yahay somalilandna qofna kama maaranto haddii uu leeyahay waa soo dagaalamayaa isagay jirta labada tuu qaataba sida ugu wanaagsan baa looga jawaabiya halkan waxaan uga jeedinayaa waxaasoo clarification horta waxaan siinayay dadweynaha somaliland waxaa soo geliyay daalo iyo xalka arrinkaasu horeysa iyo dambeysaba dowladdu saasay ugu dadaashay arrimaha ninka aan meesha ogeyn ama joogin ama dana kale oo halkan ka bunbuuninayo oo yidhaahdaan dowladdu waxba kamay qaban dowladdu waxay qabanaysay beelihii isdiray bay la heshiisiinayay ninkuna nin ciidanka abuu ahaa waa weliba iyada caynkaa tahay baa ummadda iyo wadaada iyo odayaal iyo waxba lagu heshiiyey inuu balna bartuuga la dhegeysta cabashadiisii ninkaasu ma sugin iyadoo weli beelihii aanu wadno inta ugu dambeysay meesha la marmarayay buu qarnatay caaqilkaasuna waa ka daba tegey markay caynkaa noqotay waxaa halkaa kaga dhawaaqayn waa wada maqlayseen waxaan ahayd dee jabhad somaliland ka soo horjeeda oo cid baan la dagaalamaya iyadoo ay sidaa tahay maantana weli annagu xukuumad ahaan in sharciga sidiisa loo wada fuliyo aada uma rabno isagay ku xidhan tahay iminkana maadaama halkaa ka dhikaleergareeyey hadduu nabad qaadanayana isagay ku xidhan tahay oo dee somaliland buu ka mid yahay somalilandna qofna kama maaranto haddii uu leeyahay waa soo dagaalamayaa isagay jirta labada tuu qaataba sida ugu wanaagsan baa looga jawaabiya wasiir waxaa jirta caaqilkanaad sheegtay beeshiisu adigaabay ku hadashay waxay sheegtay inay kalsoonidii kala noqdeen iminka miyuu beeshii caaqilu yahay caaqilka maaha caaqilku caaqilka iyo caaqilkan waa kala kala caaqilkan ka hadlaya waa beesha caare wuxuu tegey kuwa markii hore garowga tegey awaaga hore ogeyda kaasu saasuu kaga dabatay ma waxaad sugaysaa nun ficilada kasoo baxa caaqeyn adigu ka go-aan qaadataan mise waxaa jira go-aan dhaboodii xukuumadan aad gaadheen oo arrintaa ka gaadheen go-aanka dhabta ah markaynu inagu nahay somaliland inagu waxaynu kusoo awicaaleyba inaynu tanaasulaad isku sameyno tanaasulaadkii maanta xuduudeedii ninka wuu ka baxay oo jabhad baa leh hadduu odhanayo nabad baa leh ya nabadana de waa loo diyaar laakiin labadiiba gacantiisa ayay ku jiraan anagu inta nabadu gacanteeda ku jirta waa naga siinaynin intaasoo jeerba waa waxbaa la qaaqaadin haddaan ku doonina inaan ku qaadno laakiin hadduu dee dagaalkuna jawaab buu leeyahay dagaal ma samaysan qorshe lagu xalinayo cabashada uu muujiyey hadiiba uu ogolaado in dib u soo laabto marka uu hadlo
dariiqa cabashada loo maraa waa hadal cabashadu horta waxay jiraysaa ilaa inta bini aadan jiro cabasho waa jiraysaa cabashadana waxay noqonaysaa un mid dhaba iyo midaan waxba ka jir iyo mid badhna sax yahay badhna uu qaldan yahay waanay jiraysaa saasi u joogaysaa arrin maaha everybody laakiin markaynu nahay jamhuuriyad oonu dastuur leenahay oonu saan u dhisannahay laba wax labadaasuba waa cad yihiin waddooyinka loo maraya mid waxa weeyaan kursigan madaxweynaha ama baarlamaanka ama golaha deegaanka xusbiyanu dee u samaysan dariiqa keliya loo marayaa waa dariiqa nabadda ee xusbiyada isagana la isku soo bedelaysa somaliland oo dhan isbedelaysa cabashada kale imanaysaana waa cabashada loo mariyo dariiq nabada marka cabashada uu dariiq nabada usoo maro marnaba soomuu dirin waa kaa maalintuu baxay oo gaariga keliya haba lacagta dhacay waa kaa maalintii uu baxay ee ku xigtay